xasadku wuxuu leeyahay daw maadaama dambiyada waaweyn uu ka mid yahay qofka muslimkaana la raba inuu ka dheeraado dawa ayuu leeyahay cilaajkiisu mid wuxuu ku saabsan yahay qofka la xasday midna waa qofka xaasidka oo xasdaya qofka la xasdaya asaga waxaa laga rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba ilaahay u toobad keeno oo toobad keen dhaba ula yimaado kana toobad keena dambiyada keenay in lagu xasdo wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir wixii idinku dhaca waa waxaa idinku shaqaysateen haddii lagu xasdo oo xasadkaasi dhibaatooyin lagugu gaarsiiyo dembi ilaahay aa ka gashay baa jira ilaahay mar walba u toobad keen arrinka labaad oo qofka la xasday uu iskaga daweynaya waxa weeye atacawud billaah min shari alxaasid inuu qofku ilaahay ka magan galo qofka xaasidka ah shartiisa wa min shari xaasidin idaa xasad waxaan magan gelayaa ilaahay waxaan ka magan gelayaa midka xaasidka ah xasadkiisa marka qofku mar walba ilaahay inuu ka magan galo walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo jideeyey calaa lisaani nabiyihi inaynu akhrino suuradahan mucawidaadka la yidhaahdo oo waxa weeyaan ilaahay lagu magangelahayo subaxdii iyo galabtii iyo salaad kasta gadaalkeeda iyo qofku markuu seexanayo intaba inuu akhriyo suuradahaas inuu akhriyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay inay u noqdaan qofkaas inay xijaab uga noqdaan xasadka iyo sharta oo dhanbaba arrinka saddexaad oo uu samaynayaa waxa weeye التوكل على الله qofkaas xasdaya iyo xaasidnimada lagu hayo inuunan milicsan ilaahay uu tala saarto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh qofka ilaahay tala saarta ilaahay baa kaafigiisa oo ku filan marka ilaahay baa ka tala saaranaysa arrinka kaloo lagu daweeyo waxaa ka mid ah sadaqada qofku inuu badsado qofka la xasdaya sadaqada inuu bixiyo oo waxa weeyaan sadaqadaasi xijaab bay u noqonaysaa waxay uga noqonaysaa waxa weeyaan kuwa xasdahayo oo dhan balaayada iyo sharta ay maleegayaan bay uga noqonaysaa xijaab arrinka shanaadi waxa weeyaan iطfaa'u naari alxaasid bilixsaani ilayh dadka wax samayn karaana way yarta qofka ku xasdaya cadaawadda uu hurinahayo iyo sharta uu wado inaad demisid maxaad ku deminaysaa إحسان بعض الصمينيس كي حاسد كوجوها أيا وح ويان إحسان الصمينيس مركا وحسيسيد كي حاسد كوجوها وهذا الفيعان أكو ترادي وإحسان مرول بعد الصمينيس ضبكي وشلا هي يعدا ودي وملاجي إلهي أسوي كعلنا هي ويكد ميسا مركا قفك كو حسدية إحسان الصمين مركا كورتمادي وجهك أفرفر صدقة السي هذا الكوناكسن معاملة وناكسن كل رقم أسقوا كحسد ليلا والنهارا شر بلايا كون ملاجيا شرتي سكدمي أسقى كل بنيس قفك الحاسد وإنه إلهي كعب صدا وإنه أجاد نمعان إلهي ببحيي أدون كان يحوكم كنسن حالات أولي هينكم كنسن هذا مال هذا قروح هذا أولاد هذا مقع هذا شرف وليه أو ديريه أو كحسديه إلهي إنه سيي أو إلهي سبحانه وتعالى نمعدا أو بحيي وإنه ملع صلاة وإنه كرع للنقضاء بقضاء الله وقدره وحا إلهي أقدري وإلهي أتشانقوي وإنه كرع للنقضاء أو نولا الكيسة نمعدا كحسدي وإنه أقادا ما دام حاسد أويهي عاقبة حمضة أو نحليا إني تهي مد الدنيا مد آخرة قفك حاسد كعمرك إلهي ما بركي مالك سنة إلهي ما بركي وراهدي سي قولك سنة إلهي ما بركي وإنه قفك أقادا حاسد وحويان شرطان إيا بلايداني أساق إني كسو الله بنيس ونفتي سأون مرق إيا همي وإزيادينيس وحو كقادها يقفكاس نآن لأرق نمعاد إلهي قسي ولذلك با وحا ليلا يكفيك من الحاسد
أنه يغتم في وقت سرورك وفرحك وحاكف لنقفك حاسدك إنه مرقون هيو أو مرق دريم هيو مركا أدو فرح سنتها متك أحسد يا مركا فرح سيعي كي حاسدك ومرقونيا ولذلك وحال يقفك حاسدك وحو أموغضا مركا أموغضا سيدي قف مظلوم أبو أموغضا أولا الدلميي محايا لي وحو كحو يهي oo ka murugoonaya oo waxa weeyaan la xusniga iyo murugta haysaa ay ku haysaa hebel ilaahay muxuu waxa u siiyay muxuu nimcada u yeeshay muxuu kaaga fiicnaaday murug ba iska haysa marka sidii qof madluuma ayuu u muuqdaa asagaana dhaalim ah walidaalika waxa la alhasad daa'ul jasad xaasidnimadu waa cudur jismigaaga ku dhacaya nafsiyan baad u jiranaysaa marka waxa weeyaan waa inuu ogaado qofka wax xasdaya midka aad xasdaysaa waxba ka qaadimaysa cudurkuna aduu ku haya asaguna waa ka caafimaad qaba xagga ilaahayna cuqubo weyn baa ku sugaysa oo dhibaato weyn iyo dambi iyo musiibooyin ayaa ku haysta arrinka waa inaad iska caafisaa waa inaadan milicsanin dadka ka sareeya ee dadka ka hooseeya afiirisa midkan aad xasdaysido wax kaaga sareeya ha fiirina kuwa ka hooseeya waa inaad milicsataa oo fiirisa ولذلك وحي إلى بعض السلف أول ذنب عصي الله به الحسد ذنبي أقول يا إلهي لقوا عاسية حق الصمدة حسد بوها وأنا إبليس أو حسدي آدم أودي لين سجود وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد ذنبي أقول يا إلهي لقوا عاسية نقول مركز لا تشوغنا حسد بوها ومتكي وحويان ويلكي أود لي آدم أودي لي ولا الكيس انتو كحسدي إلهي إنه أصدق صدقاتي كأقبلي أيو كحسدي مركز ودلي مركز دنبيجي سمادا لغو قلي يكيد لك لغو قلي لماذا وحي النقدين وقوه ريي الحسد وإن حسد ما نسكيل عليها ولا لي الحسدكو وحو نحمرع ضدك أي كوضا نحيسا اسكو شقو هدايتهاي قناعسي هدايتهاي عافمات هدايتهاي مجالك تعليمي ونحمرع wuxuu xasadku dhexmaraa qabaa'il ay ka dhaxayso loolan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo wuxuu xasadku dhexmaraa kooxa iyo guruubo ama ha ku salaysnaadeen kuwa diimeed oo urur diimeed ha ahaadeen ama ha ku salaysnaadeen kuwa siyaasad ah waxa weeyaan oo tanaafuska uu ka dhaxeeyo ayaguna waa isxasdaan wuxuu xasadku gaaraa in laba wada dhalatay ay isxasdaan oo ay isdilaan wuxuu xasadku gaaraa laba la isla qabo inay isxasdaan oo sun isku qooshan ayuu gaaraa waa musiibo khatar ah oo cadiim ah oo waxa weeyaan aad iyo aad u weyn weeyo khatar ah lana rabo qofka muslimka ah inuu ka dheeraado waana fahamtay macnihiisa oo markaa jeclaatid nimcada ilaahay inuu hebel ka qaado ama adiga ha kugu soo wareegta nimcadaasi ama asaga inta ilaahay ka qaadayna kugu soo wareegina isku mid aad ahaataan mar haddaad sidaa aad tamaninaysid xaasid baa tahay aathim dembaabay baa tahay dembi baana kugu socday ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeen weliba dadka ganacsatada ah oo ganacsiga uu ka dhaxeeyo waa inay ilaahay ka baqaan aad iyo aad bay isku xasdaan bal qaarkood inay isdilaan bay ku didaalaan qaarkood inay isu sumeeyaan bay ku didaalaan qaarkood habeen iyo maalin dacaayad bay iska faafiyaan waxa qofkaasi uu keenay buu dacaayad ka faafinaya maalin walba waxaa taagan tanaafus aan dhammaanahayn oo u dhaxeeya dadka ganacsatada ah kuwa caafimaadka ka shaqeeya kuwa waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskuulada ka shaqeeya kulligood tanaafusku waa ka dhaxeeya nabiguna wuxuu yidhi tatanaafasuun uma tataxaasaduun marka hore tartan baad gelaysaan waa tartamaysaan kabacdiina waa isxasdaysaan halkaasaa xasadku ka imaanaya ilaahay subxaana wa tacaala quluubteena allah ka saaro kuwa aan isxasdin oo isjecel allah naga dhigo ذنبي دم والدكم بعد الله الضعف اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه وتعالى قلوبتنا الله كساره كوان اسحسدين واسجعل الله نقدك ذنبي دم والدكم بعد الله الضعف اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه وتعالى قلوبتنا الله كساره كوان اسحسدين واسجعل الله نقدك ذنبي دم والدكم بعد الله الضعف
اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.